kulankan Balaadhan ee maanta isugu yimaadeen maamulka degmada guddiga qaanuurinta wadada sanaag ee qaybta Ceelafweyn iyo Cuqaasha iyo Waxgaradka deegaanka Ceelafweyn ayaa waxa maanta kulankan oo ka qabsoomay xarunta dawladda hoose ee magaalada Ceelafweyn ayaa waxa lagu falanqeynayay sidoo kalena lagu gorfeynayay qodobo dhowr ah kuwaas oo waxtar iyo anfaac Balaadhan u noqonaya bulshooyinka iyo guud ahaanba degmada Ceelafweyn gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelafweyn Salmaan Yuusuf Diiriye Odowa oo markii kulankaasi uu soo gabagaboobay warbaahinta uga warbixiyay qodobada ugu muhiimsan ee kulankaasi lagu falanqeynayay ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa howlka dawladda hoose waxaana shirka ajandihiisu ahaa kow hirgelinta iyo dirdirgelinta mashruucii wadada ee degmada Ceelafweyn laba adkeynta nabadgelyada saddex ilaalinta nabadguurka iyo deegaanka saddex kala qaadashada iyo bixinta magaha beeraha intaas oo qodob ayaanu maanta ku qaadanay waxa lagu soo qaaday qaabkii iyo sidii loo dirdirgelin lahaa mashruucii wadada ee degmada Ceelafweyn ay kaga qayb qaadanaysay tii qaranka mooyinka degmo ahaan afayeenka guddiga qabanqaabada iyo qaadaan ururinta wadada sanaag ee qaybta Ceelafweyn Axmed Saciid Gudane ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay halka uu la mushaaxayo mashruuca qabanqaabada iyo qaadaan ururinta wadada ee hanti hurka dhismaha wadada sanaag ee qaybta Ceelafweyn runtii maanta waxa shir isugu yimi maamulka degmada Ceelafweyn soo qabanqaabiyay maamulka degmada Cuqaasha degmada oo cuqaal fara badan ay isugu timi iyo waxgaradka kale ee degmada haddana uu qaybtaanu ku leenahay aan xoogaa ka taabto wadadu waxaanu ku jirnay shaqadeeda hadeer ilaa muddadii la iclaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu iclaamiyay ilaa iyo maanta hawsheediina waxay maraysaa meel aad u wanaagsan inta degmada Ceelafweyn ku lahayd waxay ahayd 20 kiiloomitir 20 kiiloomitir qaab iyo nidaam baan u dejinay lacagteedii sida ay u soo bixi lahayd ee qof waliba qolo waliba uga qayb gali lahayd maanta shirkan aanu isugu nimi oo maamulku hogaaminayo ahaa dardargelinta qaadaan ururinta wadada iyo qodobada kale ee maamulku ka hadleen Cuqaashu door bay ku lahayd doorkii ku lahayd waxa weeye ari lacagta markaan afar meelood u qaybinay meel kamid waxay ahayd ari xoolo nool meelna waxay ahayd qurba joog iyo baanu saarnay hadii leedakeeda ku runyahay dadka meelaha dibadaha naga jira qaybna waxaanu saarnay magaalooyinka Ceelafweyn iyo tuulooyinkeeda sidaas daraadeed qaybta ay ku lahaayeen maanta Cuqaashu oo ahaa in la helo arigii xoolihii noolaa qaybtoodii baanu maanta u gudbinay iyagoo maamulkuna goobjoogka iyagaana markaa qorshahoodii iyo sidii ay u qaybsan lahaayeen iyo sidii ay soo saari lahaayeen dejisanayay marka ay dejinta dhammaystaana kulley waxa la isagu iman doonaa shir dambe oo sidii loo ururin lahaa ay ka mid tahay hadda waxaanu haynaa kulley lacag badan baanu ururinay in badanina waa noo socotaa maayarka tuulada kalshe oo hoos timaada degmada Ceelafweyn kana mid ah xubnaha guddiga ayaa waxa uu isaguna dhankiisa tilmaamay inay ka deegaan ahaan iyo sidoo kale deegaanka uu maamulo iyo dhamaanba deegaanada kale ee hoos timaada degmada Ceelafweyn inay isla waqtigan hawluhu ay meel fiican u marayaan dhawaan insha Allah ay soo dhamaan doonaan hawlaha iyo kharashaadka wajiga koowaad ee ay kaga qayb qaadanayaan wadadaasi maayarka degmada Ceelafweyn mudane baasha Xandulla Warsame oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa kula dardaarmay qurba joogta joogta ka soo jeeda deegaanka Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag in iyaguna dhankooda si dardar leh ugu dhiiradaan hawlaha shaqo ee ka socda gobolkooda degmadooda iyo dalkooda waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland